wiilkaygii wuu ii sii cad yahay daaqadaan taaganahay ninkii meel marayo isagii baan moodayaa markaa waxaan dadka ka codsanayaa gaal iyo islaamba madow iyo caddaanba wiilkaygii ninkii arkay inuu ii soo qabto أنا magacayga caasho maxamed aadan wiilkaygii ridwaan maxamed daahir ayaa iga maqan oo bishii abriil labadeedii yaa iigu dambeysay labadeedii baxayba baabuurkiisii baa meel laga soo qaaday isagiina waa lalayahay markaa waxaan maraykanka adduunweynaha jooga dadka maraykanka jooga oo dhan waxaan ka codsanayaa wiilkaygii ninkii arkaa inuu ii soo raadiyo oo taleefanadan shaashada ku qoranna laygala soo xidhiidho yaan wiilkaygii habeenkii ma seexdo dharaartiina waan ma hadhgalo markaa wiilkaygii wuu ii sii cad yahay daaqadaan taaganahay ninkii meel marayo isagii baan moodayaa markaa waxaan dadka ka codsanayaa gaal iyo islaamba madow iyo caddaanba wiilkaygii ninkii arkay inuu ii soo qabto yaan ka codsanayaa waxaan dareemayaa dhibaato aad iyo aad u daran baan iyo walbahaar yaan dareemayaa inuu dhintay iyo inuu nool yahayna ma kala ogi kol waxaa laygu yidhi webiguu ku dhacay mayd baa la ii keenay maydkii isaga uu noqon waayey eegana inuu webiga ku jiro inay maxay ahaydee uu xidhan yahay in la afduubay ma kala ogi waxaan codsanayaa dadka maraykanka ku nool state kasta ninkii wiilkaa arkay in la ii soo raadiyo oo ninkii arkayba taleefanadan shaashadaan ku qori doono inuu igala soo hadlaa yaan ka codsanayaa dadka islaam iyo gaal iyo islaam ma seexdo habeen iyo dharaar midna ma seexdo wuxuu xidhan jiray jaakeed buu xidhan jiray funaanad ama jaakeed ha ahaata madaxuu soo gashan jiray halkanuu baabuurka dhigan jiray ninkii maxay ahayd meelaha socda waxaan moodaa isagii baan moodaa walbahaar badan baa aad ii haya markaa wuxuu ku meeyan yahay in ilaahay baa og booliskiina waxay ku leeyihiinuun ma hayno geeriyo nolol markaa boolis iyo dadweyneba waxaan rabaa wiilkaa hadduu nool yahay ninkii arkaa in la ii soo raadiyo haddii kaloo meydkiisii webiyada lagu arkayna in la ii soo sheego